Assalaamu calaykum waraxmatullah. Ilaa iyo maantan la joogo waxaa jiro waxyaabo qarsoon oo ay xali kari waayeen aqoon-yahanada ku takhasusay baaritaanka raadadka dadkii hore iyo ilbaxnimadoodii. Waxaana ka mid ah godadka Taasili ee ku yaala saxaraha dalka Jazaa'ir ama Algeria. Godad la yaab leh ayaa ku yaalo xuduudda Algeria iyo Liibiya. Waxaa taariikhdoodii lagu qiyaasay 10 sano ka hor. godadkan waa godad ay baarayaashu ku takhasusay baaritaanka raadadkii dadkii hore iyo ilbaxnimadoodii ay garan waayeen waxa ay ku tilmaamaan ama ay ku macneeyaan. waxaa midaas sababtay oo godad kala ka duway ayaa waxay tahay sawir ku xadhanaa dushooda, ayadoo qaar ka mid ah sawiradaas ay ahaayeen sawiro muujinaya qof bani aadam ah oo ku libsan dharka hawada sare lagu tago. qaar kaloo ka mid ah sawiradaas ayaa muujinaya maraakiibta hawada sare iyo dad hayaabaya hawada sare. maxay yihiin sawirada meesha ku sawiran oo ay taariikhdeeda u laabanayso 10 sano ka hor? su-aasha la isweydiinaya ayaa waxay tahay, ma jireen hadda ka hor casrigan maanta iyo aaladahan kala duwan oo dadkii 10 sano ka hor noolaan jiray ma isticmaali jireen aaladahan kala duwan, maraakiibta duush iyo wax la midka ah? muuqaalkan maanta waxaad kaga bogan doontaan waxa uu yahay godadka Taasili, meesha ay ku yaalaan iyo taariikhdeeda. intayna muuqaalka guda gelin, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamada gaduudan ee subscribe-ka, gambalaalkana furo si ay kuus dhaafin muuqaalada xiga insha Allah. godadka Taasili waxaa loo yaqaanaa Taasili en Ajar. waa silsilad buuro ah oo ku yaala bartamaha lama deegaanka koonfur bari ee Algeria. in yaroo ka mid ah godadka waxay gudaha galayaan xuduudda Liibiya. buurahan waxay kor u kacsan yihiin 2000 oo mitir in ka sareyso heerka badda, waxayna ku fidhidaa bilac dhan 50 ilaa 60 kilomitir iyo dhirir cabirkeedu dhan yahay 800 oo kilomitir ah. guud ahaan waxay ku fadhidaa 70,000 oo kilomitir oo isku wareeg ah, waxaana loo yaqaanaa kaymaha dhagaxaanta. waxayna leedahay wadooyin aad u yaryar taa oo lagu mari karo kaliya lug ama xayawaanada la rarto sida fardaha. daafurka Taasili waxaa sabab u ahaa nin lagu magacaabo Jibriil Maxamed Bushaar Abibakar. waa nin u dhashay qabiilka tawaariikhda oo ah dalka asalka halkaasi dega, balse waxa soo helitaankii Taasili loo nisbeeyey dhulmareenkii reer Faransiis ee Henri Lot oo ka faa'iidaystay aqoontii Jibriil Maxamed uu u lahaa dhulkaasi si markaa uu u gaaro godadkan Taasili, maadaama Jibriil Maxamed uu ahaa qof ummi ah oo aan waxba qorin waxna akhrin. dhulmareenku wuxuu safar ku marayay xuduudaha Liibiya iyo Algeria. kadib markii uu dhagaxyadan oo ay sii jiiteen dareenkiisa ayuu wuxuu u soo dhaqaaqay inuu gudihiisa ka arkay inuu wax badan ka ogaado. kadib ayaa waxaa dhacday godadkan gudihiisa inuu ku arkay sawiro la yaab leh oo ka tarjumaya nolosha iyo ilbaxnimada dadkii hore oo ay meeshan ku noolaayeen, taasoo markii la baaray la sheegay in sawiradan ay u laabanayso ilaa iyo 30,000 oo sano ka hor. sawirada halkaa laga helay ayaa ahaa kuwa kala duwan, waxaana ka mid ahaa sawiro loo daaqaysa doog cagaaran, fardo, wabiyo, beero iyo xayawaano duureed. kuwa kale ayaa muujinaya xaflad diimeed iyo sanamyo waa hore la caabudi jiray. waxa cajiibka ah laga helay godadkan gudihiisa ayaa waxay tahay sawir ku xardhan darbiyada godka oo ay ahaayeen koox dad ah oo sita dharka hawada sare. sidoo kale dharka casrigan ay dumarka xirtaan ee ah dharka qaqaawan iyo sawir maraakiibta hawada sare iyo diyaarado qaab cajiib ah oo naqshadaysan. sidoo kale waxaa laga helay sawir muujinaya dad dhex duulaya inta u dhaxayso diyaaradaha dhex duulaya magaalo weyn oo aad u horumarsan. sidoo kale sawir ka duwan kuwii hore oo ah noole aan binul aadamka u ekeen, taasoo lagu sheegay inay yihiin noolayaal dhulka ugu horeeyay intuusan imaanin bini aadamka. sidoo kale waxaa la sheegaa in xayawaanadaas ama sawiradaas waxay muujinayaan ay yihiin noolayaal ay bini aadamka ku soo booqan jireen dhulka, taasoo ay muujinayaan kuwa loo yaqaano alienska ama kuwa ku duula suxuunta duusha. haddii aad daawatay filimka Jaadu, waa waxa loola jeeda xayawaanadaas ama ay muujinayaan sawiradaas.
halkaa waxaa laga helay sawiro dhan 30,000 oo sawir waxayna hay-adda UNESCO ay u diiwaan gelisay sanadii 1982 in godadka taasiili ay yihiin dhaxal caalami ah. baarayaashu waxay ku wareereen in sawiradaas ay yihiin kuwa jira maxaa yeelay sawiradu waxay u laabanaysaa 30,000 sano ka hor. aadamkuna wuxuu ku jiray marxaladda bilowga noloshiisa. dhamaystirka taariikhda godadkan taasiili waxaad kaga bogan doontaa muuqaalka xiga ee idinkii. si aad ula socdo qaybta xiga taaba calaamada gaduudan ee subscribe-ka. haddii aad horey noola joogtay nala sii joog mahadsanid. waxaan halkaa ku idlaaday xalqadeeni koowaad ee godadka taasiili. intaynu markaa kulmayno waxaa idinkaga tegayaa fii amaanillah.